وأكون للخير العميم مثالا. صومك أحكامتي سمرك أوريس وحين كبل الله بإن إنه تلمانه قرما أيال واجبية صومك وقرما الدنيا لك كانوا لسودة شيء. كلمة الصوم معناه هو الإمساك عن المفطرات. قفكو أفايس إنه سمايه أو إمساك شيء كتشوكسده وحال لورنجري فرد محاكود هذا خيول صائم فرده ما صوما وفردها مركي صعد كلا حيرو وحال هذا فلان سامع عن الكلام وحكى صومي هذا الكيف فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم بالقولي آموس يضو إلى هاي الصوم قتل مامي صومك وحاو معناك لليه هذا رمضان كوحا اللي هذا وترميد أما هو دنبداف أما وحا اللي هذا وكليل أو حلي كلول بصحراها كذا جري أول إسلام كي حلي موسم يدي وكاد جري حلي كلولها وقت النبي الله صادر عليه الصلاة والسلام صوم كوحا لواجبية مركي أحكام تلقى بصدي سنة كيلابات بيا هيدا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام معناه هذا وحوي يدو النبي الله صادر أيضا أفر يطبن سنة للسومين ولا يسكعون جري ولا يسكع بجري صحابة waxay tilmaameen nabigu markuu tagay Madiina alayhi salatu wasalaam ayaa saxaabada wuxuu faray inay soomaan maalinta la yiraahdo Ashura iyo thalathatan min kulli shahr saddex maalmood oo bil walba kamida taasoo culimada qaar ay ku tageen marka inay farad ahayd oo ay waajib ahayd laakiin ay tahay culimadu inay u badan yihiin inaanu soonkaasi farad ahayn xilliga nabigu uu amray oo tadawuc ahaa soonkaasi marka faradka ah ayaa yimid markii u horeysay uu yimid lama oranin sooma oo ha dhaqdhaqaaqina oo ha afurina lama oranina wuxuu ku yimid baylayn culimadu ikhtiyaar si iska tadawuca oo ikhtiyaara oo qofku hadduu doonana uu soomayo hadduu doonana uu iska afurayo laakiin uu bixinayo fidya uu bixinayo raashin buu bixinayaa qof buu afurinaya dabadeedna markii ay sidaa ku socotay mas'aladaasi oo soonkii laga dhigay inuu qofku soomina karo iskana afuri karo bay culimada qaar u daliishadeen wa cala alladina yudiiquunahu Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay yudiiquunahu ma'a mashaqqa oo odaygii weynaa ayaa loo jeedaay aayadaasi mansuukha ma aha culimo kale oo ka soo horjeedana waxay leeyihiin aayadu mansuukha weeye cala alladina yudiiquunahu awwalu islaamkii bay ka hadlaysay oo doonaana ha soomo doonaana ha iska afuro bay ahayd laakiin qofka afuraay ha bixiyo xogaa dacaama iyo cunno iyo raashin iska bixiyo sidaa iyadoo ay ku socotay baa wuxuu ilaahay soo dejiyay faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ahkaamta wujuubka faa'iideysa shariicada islaamka afar siqay ku timaada saynu naqaano inuu ku yimaado ficil amar sida aqimi as-salaah in ilaahay ku dhaahdo oo kale wuxuu yimaada ismu ficil al-amri alaykum anfusukum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum oo kale waxa uu ku yimaada xukunkaasi ficil mudaaric oo laamul amri lagu daray ya ma'shar ash-shabab man istada'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj oo kale ficil mudaaric oo muqtarin la laamul amr iyo masdar naa'ibka an ficil al-amr oo sida aayada quraanka aydu ilaahay laha wa bil walidayni ihsanan oo macnaheedu yahay ahsan ila walidayka ihsanan ayaa waxa ku yimaada ahkaamta marka waxa timid man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa fi'l mudari' oo laamul amr la xiriiriyay weey wala soomay laakiin waxa hadana la soomay in maghribka kaliya la afuro marka la soo tukado ishaha haday kuugu gaadho adoon wali raashinkii bislaysanin inuu afur dambe xaraan ka noqdo oo soonkii habeen dambe uu ku soo galo ishaha ayaa soonka dambe bilaaban jiray halku salaada subax ka bilowdo maan dabeedna saxaabi dhowr magac oo kala duwan lagu sheegay mudcim ibn jubayr iyo ibn sarma iyo qays ibn sarma magacyo kala duwan masaadirta islaamku ay ku sheegeen ayaa maalintii beer ka shaqaynayay isagoo rafaadsan buu soo rawaxay islaantiisii baa wuxuu weydiiyay cunno inay u keento cunnadii intay ku maqnayd buu seexday qofku hadduu seexdo soonkii berri ahaa baa u bilaaban jiray hadduu salaada cishaay gaadhana soonkii berri ahaa baa u bilaaban jiray haweenka iyo waxyaabaha qaarkood xaaraan bay ka ahaayeen inuu la tacaamulo dabadeedna saxaabigaasaa markii maalintii dambe iqmaa uu ku dhacay oo uu aad u dhibaatooday baa ilaahay wuxuu soo dejiyey xukunka ruqsada ah oo odhanaya
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد آيات القرآن كسيت الماميان حكم كمركا صونكو وواجب يوكو واجبي بي سؤال نقريسا مركا وحكو واجبي قفك مسلمة وقفك قال كأحكام إسلام كأحكام مطالبة وحلي إذا لقى مرة قال وصول الأوران ماي لكن هرت إسلام بالأوران هي هذا آية القرآن وحي تلمانتي إن لقوا عذاب يا فرائض ضيعي دونك مركو نولا قالكم وإلهي وحو الله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ما بأن أنتم كنتم بيد أهلين تكشلا أنتي ولا عذابي وصلاة أنتي ولا عذابي صون أنتي ولا عذابي صدقة أنتي ولا عذابي يزكى أنتي لكن مركا روحك وريارة إسلامي ما لقى البيا مركا الإسلام واشر بقفك صون كواجبيه قفك سوى إنه يهي قف أما التمييز هي عقل لا أما بالغة على محاكو ده حدينه قابلنا قول كمر والبراجحة هي وحوية قفك صون كواجبيه وقفك بالغها بالغة والنقضي دور حالات ننكيبو هايو قربو بحيي أما هو احتلامي أما قبر بي هايدو وي حيضي أما ثديقي إيا ملامح دي هوينكا كسور دعي وكم مغضي وحوية أما دادي قفق شانية طبانكا هايد بوغاري يدو فقهادو قاري دادا شانية طبانكا أيسان قابينو ليسكو خلاف سنيهاي لكن إنه شانية طبان بينو نقانا حد التكليف قفق مركو قارو قفق إنو مسلم يهي إنو مكلف يهي إنو عاقل يهي ومجنونكي صنكو واجب مايو إنو مقدور يهي ومرضك شديد كاها صنكو واجب مايو قفكي وهيستي إنو مقيم يهي ومسافركي وحالو قول يهي رخصة إنو إسكافوري كارو ماركا إنو يهي خالي عن الموانع موانع دا صنكا محاكو لهذا قفكو نسومي كرين سيدا قبادي نفصدا هايدو كالية قبادي حائضا هايدو كالية إنه قفكاسي موانع ذا لا يهي لحظة شرطي بين علماء الإسلام كشيئين ومحي وإنه مسلم يهي وإنه قانقار يهي وإنه عاقل يهي وإنه مجنون هين مجنون حكم كواجبة وحا الله يسقوها استاكلية زكاة أو للي يهي وحق المال معها حق أدونك محاكو هذا يهي كتعلق معها مجنون كمركا ومرفوع قلم سين نقانا سبيقنا ومرفوع القلم مركا قفكي مسلم كهاي عاقل كهاي بالغها مقدور كهاي أودي كراي إنه صومه مقيم كهاي دجنايا مسافر كهاين خالي كهاي محاكو ده موانع إيو أما النفاس أما حيض أما الجنون أما وحيوان نسوش إحنا منا إنا هاي سنين قف كاسا هرت الله جرب إنه صومه صومكو وحوليا إلا بركني نية أو قفكو إنه نية يستينو بريت صومه هايو ولماذا قارو حيدا نية وحكى لنا يلا بارمات الطبيعي وحلا إذا نية إن تكون بريستو صلاة الصبح أنت هذا ولي قارن أي قلبك كوجو جرتي بريتين أتصنتو نية ستي قالوا واحد تري التعيين واحد جرى يدنا إن لجرها بقفك بريتو صنك وسوما يا فرتك كوي من ندر با ما صنّا ما شهر رمضان كي كواجبة يا واجب كعينك أصلا جارك أوجو هذا إسقى فرض عين تكوا هذا صنك وعينه عيمي هي شافعية وحي قبان التكرار علماء قار فقهاء أنا وحي قبان إنا وحبة تكرار لو باهنين حديئات هل هبين نيوتو وحنية ذي كلا أو صورح قلينا أين جرينا هل هبين أنت نيوتو بشان ورن إنا تصنتو تراويح دينا أتوكنا يسو سحورتنا أتعنا يسو إنا تصنتنا أتصمينا يسو هل نية بعضو باهنتها يوكاغا صح يا علماء قار بايدي لكن شافعية وحي بدن يهين هبين والبينات سوء لسون نيدي وآد نية يستو تكرار النية وأي لازم يسو إمساك مركا اللي يدهدنا واينات عن المفطرات مفطرات محان نقون كرا وحان نقون كرا مفطرات عنادي بان نقون كرتا عبيتان كي بان نقون كرا جماعي قلموت كي بان نقون كرا استمناقي أما قفك أو صدر لن يرى قار كدعذا محاكو هذا قفك وقعنتا دعان كي سيسكاقا كينا يبا يعدعي كرا وصون كي تشابينا ايا صونكي وحا يابا بدن باجبينا يا وحا كمid ah istiqaa qofkanu iska hunqaaciyo hadii uu xitaa hunqaaco oo qaygaasi uu soo dariyo ku dhaco culimada qaar baa waxay leeyihiin hadii wixii uu hunqaacay nijaasta ahay dib ugu noqdaan oo dib u laabo iyadna soonkii waa buraya waxyaabaha soonka way buriyaan irbad kasta oo nafaqa oo badiil ka noqon karta at-ta'am wal-akl wa-shurbuna soonkii way burinaysaa iyo isticmaalayay qofkani meel manfadaho duleesha jirkiisa wixii caynaho ka gala oo jawfka gala oo gudaha u dhaadhacaana
haddayna sida maxaanku dhahdaayay boodhkii iyo halkaneecii inuu ku carara iyo waxyaabo yaryar oo noocaas oo kale ah haddayna ahayn iyana soonkii waa ay jebinayaan cayntii ama shaygii jurmiga lahaa ee qofka manfad ka galay oo daakhilka u galay soonkii waa ka burinaya soonkii marka qofku inuu ilaashado ayuu u baahan yahay waxyaabahaasna waa looga baahan yahay waxaynu idhi qofkii xanuunsanayay su'aalaha ugu badan ee la isweydiiyo baan rabaa daqaaiqda ii hadhay kelmaddaydan kooban inaan uga faa'iidaysto waxaa la isweydiiyaa oday weyn baan ahayo cajuus ahoo aan soomi karin cajuuska soomaalidu cay bay u taqaanaa laakiin qolada luuqadaa ku hadashaay cajuuska cay uma taqaanee qof tabar yar bay u taqaanaa odaygii gaboobay ee aan soomi karin ama islaantii aan soomi karin cala aladiina yudiiquunahu kuwa ilaahay ku tilmaamay baa lagu fasiray qaarkoodi waxa weeye waxaa laga rabaa inuu bixiyo maalintiiba raashin la isku celceliyo la yidhaahda mud iyo mudde hadda ma garanayno saac haddii la yidhaha hadda saac dee culimmadoo kalea taqaana waxaan leenahay hal qof inuu afuriyo taasaa ka fudud hal qof inuu afuriyo baa qofkii aan soomi karin laga rabaa qofkii marad uu hayo iyo xanuun uuna la soomi karin ma aha inaad xanuun u aragta far baa i xanuunaysa gawskaa i xanuunayay meel halkanaan ka turunturoodayo wallaahi xanuun baan la soomi kari waayey ma ahee xanuun mashaqadiisu muuqato qofku haddii uu hayo oo uuna soomi karin oo uu maxaanku dhahdaayay afuro fidyana way ku waajibi oo waa laga rabaa inuu soo qaldeeyana waa laga rabaa alxaamilu walmurdica gabadhii uurka lahayd waa su'aalaha aad laysu weydiiyo iyo gabadhii nuujinaysay waxaa la yidhaahdaa hadday afuraan way soo qallaynayaan oo soonkii waa lagu leeyahay masaa'isha marka khilaafiga fuqahada waxaa ka mid a gabadhii haddii intay sanadkan ay afurto sanadkii dambe uu u soo galay iyadoon soomin horta waa aasimo way dambaabaysaa culimmadu marka waxay isku khilaafsan yihiin qadihii unbaa laga rabaa iyo maahae qadihii iyo fidyaa laga rabaa shaaficiyadoo kale waxay leeyihin maalan labaa loo kala qaadi gabadhu ma nafteeday u baqaysay mise ilmaheeday u baqaysay ama caloosha ku jira ama ay nuujinayso hadday ilmaheeda caloosha ku jira u baqday ama kay nuujinaysa u baqday oo naf kayrkeeda ay u baqday fidye iyo waxaa laga rabaa qadaa labaduba way ku waajibi fidye iyo qadaa labaduba way ku waajibi haddaad maanta sakaraad tahay oo aad naf baxayso oo aadan soomi karin inaad afurtaa way kugu waajibi waayo naftaa yaa waxay ka horraysaa faraa'idda in la fuliyo waxaan leenahay marka waxyaabahaasoo dhan baa qofku inuu ilaaliyo gabadhii xaydada ahayd soon laguma laha wayse soo qallaynaysaa gabadhii maxaan ku dhaha umusha ahayd ee nufasada ahayd soon lagama rabo laakiin way soo qadaynaysaa qofkii musaafirka ahaa khiyaar buu leeyahayo inuu maxaanku dhahdaayay soomana wuu kari karaa ruksana waa la siiyey culimmadu waxay leeyihin markaad musaafir tahay inaad afurto ama ruksa mise waa caziima xanafiyadoo kale waxay leeyihin waaba caziima waxaa kugu waajiba inaad afurto laakiin sida loo badan yahay rukso weeye marka waad afuri kartaayood cuni kartaa faciddatu min ayaamin ukhra baa kuu taalla faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin waxay u qadaraan culimmadu qur-aanka waxba looma qadari karee laakiin luqa hadduu noqon lahaa fa afdara bay u qadari lahaayeen qofka afura isagoo mariida ama maxaan ku dhaha musaafira faciddatu min ayaamin ukhar ayaamo kale ayuu soomi waxaa halkaa ishkaaliyaahu la isweydiiyaa maalmaha ramadaanku way isku xigaan maalmaha qaduhu ma isku xigaan maya iskuma xigaanee intaad doontaad soomi maalinba mar baad soomi haddaad rabto maalmo isku xigana waad soomi kartaa saasaad u soomaysaa waxaan leenahay marka oo aan ku soo ururinayaa oo ku gabagabaynaya mudaakhaladayda wakhtigeedii waa dhammaaday soonku waa wix ilaahay qofka muslimkaa siiyey ahdaaftan aan kuu sheegayaa inaad xaqiijiso haddaadan hadaf lahayn ku guulaysan maysid soonkee soonkaaga waa inaad ilaahay weydiisataa inuu cidqu min annaar kaaga dhigo naarta lagaagaga xoreeyo waana inaad ilaahay weydiisataa inuu dacwadaada ajiibo ducadaada aqbalo waa inaad ilaahay weydiisataa amraad iyo macaasida inuu kaagaga daweeyo soonkaaga waa inaad ummadda ugu naxariisataayo aad qof miskiina afurisaa markuu ilaahay leeyahay waan tasuumuu khayrun lakum waman tadawaca khayran cabdullahi ibnu cabbaas tadawaca khayran wuxuu ku fasiray qofka intuu soomay sadaqadiina ku daray wuu soomay dadna waa afuriyey marka waxaan ku gebagabaynaynaa walaalayaal kitaabka qur-aanka aan la noolaana waa shahrulqur'aan siduu sheekhii iga horreeyey sheegay waxaan ku gebagabaynaynaa inaan samayno istilaax maca allah ilaahay inaan maxaanku dhahdaayay uga tooba keenay dunuubtii hore
qalbigeennana aan ka rajayna thabaat iyo xaqa inuu ku sugnaado inta ramadaanta ka dambaysa intaasaa naftayda iyo nufuustiinnaba u dardaarmi lahaa allana hayna waafajiyo xaqa niyadu waa shay iska fardi oo qofku niyeysto maxalkeeduna qalbiga weeye laakiin dhib ma laha haddaananoo halkaa iska marayay idhaahdo nawaytu sawma qad can adaa fardi shahri ramadaan wax dhibahoy u keenaysa soonkaagii ma jiro laakiin sida saxda ee salafka ka sugani waxa weeye inaad adigu niyeysato shakhsiyan niyadaasoo kuu gaaraho casiimo qalbigaaga ah oo aanay waxba shardi ahayn masaajidka marka saa loo afuro in la wada qayliyo oo la yidhaahdo sheekhiyow noo xidh baa la yidhaahdaa hadda jabuuti oo kale way ka jirtaa sheekhow noo xidh sheekhii shalay wuu dambaabo oo soonkii nooma xidhin bay yidhaahdeen marka waxa weeye sheekhow dadka waxba soonka ha u xidhine iyagu ha xidheene qof walowba qalbigaaga ka niyoyo inaad soonta niyeyso culimadu laba isugu khilaafsan yihiin oo waxay yidhaahdeen qofkii horta inuu dembiile yahay shaki kuma jiro hadday mumaadalo samaysay oo aan xanuun jirin oo dhibaato ay la soomi weyday gabadhaasi ayna jirin ama qofka muslimka ah ee intuu cudurdaar helay uu cudurdaarkii ku afuray isagoon weli soonkii soo qadaynin sanadkii kale u soo galay ayankaana duruuftiisu ha ahaato ama xaayid ha ahaado ama nifasa ha ahaado ha dhasho umul ha ahaato ama ha xanuunsanaado wuxuu dooni ha ahaado sabab cudurdaar buu ku afuray mana una soomin ilaa soonkii kale laba mid buu noqonayaa qof cudurdaarkii haystay oo xanuunkii haystay iyo qof caafimaaday oo wuxuu sameeyey iska fudaydsi ay noqdeen oo axkaamta islaamka iska fudaydsaday hadduu axkaamtaa fudaydsaday oo uu soomi karay qofkaasi oo aan wax xanuunay haysan culimmadu labay u kala tagsan yihiin qowlka raajixina waxa weeye inuu soonkiina soo celiyo fidyana ku daro oo uu maalin cunaysiiyo maalintii uu gafta sameeyey oo soonkeedii uu dib u dhigay intuu soomuu soo celiyo haddana inuu booskii dib u dhigana qof cunaysiiyo fidyo uu la yimaado qowlkaasaan u arkaa inuu raajix yahay culimmada qowl labaad oo isna awood badan oo adilla lihi wuu jiraayo odhanaya ilaahay qofka bani aadamka waxba dayn kuma yeeshee tawbana waa laga rabaa dembiguu galay iyo mumaadaladu sameeyey axkaamta ku ciyaaray soonkii unbuuna soo celinayaaye wax fidyaa laga dooni mahayo qowlkaasina waa jira laakiin anugu qowlkaa koobaad صلوات الله عليك